waxa lagu yiri war gabadha ay ahayd waa inay dab lahaata waa inay asbaabaha sharciga ku ismanaataayo waa inay dastuurkii Alle amarka raacdaayo waa inay dharkii lagu ogaa ku asturnaataayo waa inay ardaagooda iyo aqalka joogta waa inay asxaan waalidkeed ugu adeegta waa inuu khiyaarkii geeyaa soo ardaa dhigo marsi haday albaab reer kale oo dafada jiido Afrika iyo Asia haday subaxba meel aado Obama iyo Bush haday u ashtakoonayso ifka lagu cadaabiyo timbay oridi taybale oo macnaheedu waxaan kaga hadlayay gobadhahan intay boorsooyinka waaweyn qaateen afka asisteen indhaha madoobeysteen backgroundka diyaaradda taaganta haddaanu nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa beesha caalamka sida qaramada midoobay midowga Yurub jaamacadda Carabta urur goboleedkayga midowga Afrika UN hay'adaha xuquuqul insaanka kuwa deeqda bixiya United Nations iyo AU waxaan u cadeynaynaa u qeexaynaa u bayaaminaynaa u soo bandhigaynaa xaq iyo xuquuqdii qismiga iyo qaybtii aan ku lahayn arrimaha Soomaaliya in miiska nala saaro shuruud la'aan yaa u dirsaday أو شغلة إلهي سبحانه وتعالى وأمر دمرك إن يقوليه هذا الشغلان ده بأخلاقنا لهذا آية القرآن آية وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إلهي وحده يقوليه إن كنا قاعد دمر إذا بأخلاقنا لهذا حقوق ده يهدي بحكم حق رجع إنه يقول هي نيلالية وبدكينا نكوريا أقل كينا يقولين إن أطوق هي ميل لو يريد دمرك مدعوين على يوصل شرحان أنت أفعل ستان ده ماذا بيستان هدي مصر هي مالية مقعية منفعة دنيا هالرادية ميل لا يكون قرنت هذا المجرد وأنا برنامج هذا اللي يسكو خلي يرميها هوينك يرميها سيدة مارس وشيكون هذا كله خليه حاجة يكون قرنت إلى يقوليه إن تشوقوا كوي الرجال قوامين على النساء ثم يقوليه رجع معمول كي يتلقى وقدم بهاي دفاع ذلك يدوديسك ذلك يكورتك دقن حماده إلى دجالك مسلمان سوق يسوقي أمنية حولها صار رجع بالله حسار الدمر كشقكم عليه أفارها أنا يسكو قلنا هو دمبي كبائر